buug qora wuxuu tilmaamayaa waa wax la wada leeyahay waa asad ummadda wax u dana weeyaan waxa weeyaan dee maxamed kuma mashquulin wuxuu isagu wax ka helayo shirkado private-na kuma mashquulin laakiin wuxuu maskaxdiisa iyo garaadkiisa iyo aqoontiisaba geliyey jiilasha dambe inuu uga tago legacy wanaagsan si ay u akhristaan run ahaantii buuggan sidaa laga dhawaajiyey bisha February baa lasoo bandhigay dad way joogaan markaa akhristay oo intaa research ka soo sameeyay way la wadaagi doonaan waxaynu yeelan moodaa beeyahan dambe dhaqankeennii xataa ifa terminology-ga ama hadallada la adeegsanayo way isbedeleen marka waxyaalaha loo baahay in la nooleeyo waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dhaqankii baa ka mid ah oo de waxa weeye geeyii baa laga warramayaa oo guurkii gayaankii sida hablaha loo doonayay iyo qaabka loola macaamilayo iyo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dacaawo kale way fiicnaan lahayd inay xukuumadda oo kale inala joogto oo dee ay inala yara dhiirigeliso laakiin waxaan dareemi karayaa dee dhalinyaro badan baa soo ajiibtay oo timid oo u heelan inay ka qayb qaataan waxa weeyaan buuggan iyo qaabka loo qoray buug marka la qorayo dee kolay tafatiraha laftiisu dee tacabada buug geliya oo marka la tafatirayo waa hawl aad iyo aad u adag oo waxa weeye qof soo jeed badan samir badan waqti buu qofku gelinayaa waxaa la yidhahdaa qofku waxa ugu wanaagsan ee uu hadiyadeeyo waxa ugu wanaagsan waqtiga qof waqti geliyey oo u soo jeeday oo u feejignaa marka maxamed xasan ciid waxaa leeyahay caawa oo dhan inaanu kula joogno ka caajis mayno waayo adiguba waxaad gelisay waqti aad u badan bilaad gelisay oo aad u badan laga yaabo inaad sanada gelisay marka waxa weeyaan adigu intaa qanci weyday oo adiga caawa dee xisaltiga iyo dambihiina hor keenay anana inaan caawa dhan kula joogno diyaar baan u nahay hal kaftanun baan odhanayaayo de waxaan leeyahay buuggan in la iibsadaa horta waa muhiim oo de waxa qofku wixii waqti badan geliyey inuu midhaheedii helaa waa muhiim inkastoo dee kolay su-aalo la isweydiinayo dee dadku say su-aalaha marka la jawaabaa lafteedu tahay fursad qofku buugga ku heli karayo laakiin qoraaga buugga tacabka uu geliyo waxyaalahu tacabka kusoo noqonaya waxaa ka mid ah buuggii oo la iibsado abwaanka waxaa la qabaa qoladiina saxaafaddu waxaa la idhahdaa waxaa tihi middo lama af leh dhinaca khayrka haddaad istiraadaan ku jarana wax wanaagsan iyo midho wanaagsan oo dadka iyo dalkaba dan u ah ayaa soo kordhinaysaa imka for example abaaroo kalaa jira abaarahaasoo kale haddaad samaysaan kuwaas ama qoraallo aad gudbisaan waxaa laga yaabaa dad badan oo mugsiniina inay ka soo jawaabaan laakiin sida abwaanku ka dhawaajiyey caawa haddii la idhaahdo axsaabtii siyaasadda ama xukuumaddii iyo waa lays yar hayaa qof kastaba halkaasaa cuncunayso waxaa laga yaabaa weriyo inaanu guddiga maanta dhan fadhiisan isagoo isle warkaas qarka laga darayo aad ka qaadi buuggan la qoray waa asad dhammaanteedina wada anfacaya inaad buuggaa meel fog gaadhsiisaanna diyaar baan u nahay